السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين ومضيق وإذا لجع المركز برواقة يبرارو ولا ليه جماعة وحارة وحير أو وعيقلين أو أمواني إن أهل كان كسو جيديو محيد ولا ليه dadka muslimka mar walba waxay ku qurux badan yihiin maslaxad iyo inay wanaag ka shaqeeyaan labada qof oo walaalaha way isqaba karaan markaste dadka bini'aadanka mar walba way isqaba karaan ama walaalaha ahaadaan ama saaxiibaha noqdaan wax walba ay yihiinbo laakiin waxa qurux badan in maxay ahayd hadii aad soo galaysid in maslaxadooda iyo wanaagooda aad ka shaqeysid hadii kale intana aad faraha ka qaadid laakiin ma ahan in maxay ahayd loo kala hiiliyo in maxay ahayd qof lagu dambaabo in maxay ahayd loo kala safto wareysida xataa markii la qaadayo waxa wanaagsan si oo anshaxaysan oo idabeysan in maxay ahayd loo maro oo qofka careysan hadii hadal xanaf leh iyo hadal ama aflagaade oo maxay ahayd ku soo darayo oo laga qabto fiican oo wax walba maxay ahayd xag wanaagsan laga fiiriyo ma sha Allah marka halkaas ugu baxa anigana halkaan hadda maanta waxaan rabaa inaan la gaarsiiyo labada wiil oo walaalahay oo kulligeen walaalaheen maxay ahayd CK iyo Ismaaciil Xaaji labadooda ma aqaani maxay ahayd qof aan aqaano aan gooni u aqaano ma jirto halkaan YouTube baan labadooda ka bartay marka waxa waaye walaalahayga waxa fiican wanaaga hadee wax yar ay isqabteen waxa wanaagsan in oo si hoose qof walba markay ama dumar ama rag ama lees qabto si hoose in loo xaliyaa wanaagsan ay u xalistaan sheekadooda in social media lagu soo cararo oo lis ceebeeyo sumcadda la iska qaado ma ahan hasa ahaata xataa maxay ahayd hore hadda saaxiibo u aheedeen laba qof oo abal saaxiibo ahay oo cod isku diri jiray oo qoraal isku diri jiray haddana markii aan isqabanaba hadii aan social media iyo public kula soo cararo shaariciyada wax wanaagsan ma ahan maxay ahayd sheekadaas maxay ahayd dumarka xataa way u badan yihiin ragga maba lagu aqoon hadeertaan maxay ahayd waa ragga iyo dumarkiiba ka sii badiyo waxaas wax wanaagsan ma ahan rag iyo dumarba waxa fiican hadaad heshiis labada qof saaxiib hore aheedeen oo isqabatiin inta aad maxay ahayd maslaxad raadi kartid raadi hadii aad maslaxad raadin wixii hore waxba ha soo raadinin cod hore lagu soo diray ama qoraal hore waxba public iyo kula soo cararin wax wanaagsan ma ahan wax qurux badan ma ahan wax ragnimo ku jirto ma ahan wax islaamnimo ku jirtana ma ahan laakiin waxaas in ilbaxnimo iyo laga raadiyo oo maxay ahayd lagu soo cararo waa qofkii sameeyay bay bahdil ku tahay wax fiican ma aha walaalayaal maxay ahayd waxaan halkaan rabaa in la gaarsiiyo labadaas wiil oo walaalahay wax waji kama rabi wax maxay ahayd fayuus kama rabi social media lacag wiligay iga soo gashay ma cunin wiligay kuma nooleen wiligeen hadeertaan aan bilaabay xataa maxay ahayd wax aan ka helo ma lahan mana maxay ahayd u soo galin alxamdulillah umana baahni hadii aan iska gaaro iskay u gaaro xataa alxamdulillah markaas laakiin wax aniga hadda aan baahi igu kalifto oo soo gal ma jirto inta haysto Allah ii siyaadiyo hadii aan ka helo manacay oo maxay ahayd oo xilligeyga la gaaro laakiin hadda fayuus ahaan oo halagugu barto ama maxay ahayd wax badan ka gaar aan isleeyahay oo codkan igu kalifay ma jirto laakiin hadda waxaan u soo duubayaa aragtideyda iyo maxay ahayd hadii la qaadanayo wixii wanaag qofka oo ka qaadanayo in labadaas wiil ay ku socoto oo la gaarsiiyaan baa rabaa dana kale inta kale ma jirto CK ma aqaani oo halkaan baa ka aqaana YouTube ka si gooni ma aqaani Ismaaciil ma aqaani marka waxaan rabaa labadooda wixii iiga aadan inaan sheego marka wiilkaas CK hal maalin oo soo galay halkaas maalin Ismaaciil asaga kaga horeeyay Ismaaciil soo hadlay qofkana markii la soo eedeeyay inuu isdifaaco waa ku qasban yahay asagana markaas uu soo hadlay laakiin kuma uusan hadlin hadalla aflagaade oo qaldan oo hadda maxay ahayd inkastoo magaca oo lisku adeegsanayo labada meelba aysan fiicneen aan jecleen haddana hadalla badan oo hadda aflagaade kama sii arkin walaalkay Ismaaciilne asagan culeys gaaray oo waa ka xumahay qof walbana waa ka xumaanaya laakiin wixii sababay oo ku kalifay asiga naftinkiisa wiilkan walaalkeen in la weydiiyo waaye marka Ismaaciil inuu baarti 2 iyo baarti
3 iyo 4 iyo waxaas musalsal soconaya camal oo usoo qaato walaalow ismaaciilow foolxumay kuugu tahay ceebay kuugu tahay dad sabood badan kuma helaysid maxay aheeday xag oo maxay aheeday bulsho ahaana kuuma wanaagsanaanayso marka magacaadana ha iskaga cayaarin halkaas ku ekay sheekadaas walaalow halkaas ku ekay dadka wax wareysanayo ne qofka careysan intuu careysan yahay ha kaga faa'iideysanin qofka kale inta hadii aad neceb tahay xataa waxba kuuma tarayso been in lagaaga sheego ama ceeb lagaaga raadiyo ama maanta labadan qof faa'iido aad u aragtid ma ahan faa'iido laba qof oo isdagaalsan in laga kala faa'iideysto oo maxay ahayd warar laga baarbaaro wax faa'iido ah oo ku jirto ma lahan marka walaalayaal ilaahay laga cabsado maanta waa adduunyo birina aakhiro waaye qof walba meel loo soo joogo ilaaha garanayo haddii wanaag ka shaqey kartiin wanaag ka shaqey haddii ay ka shaqey karinne iska gaabsada qofna ha ku dambaabino qofna garabka ha saaranina dadka wax wareysanayo in ay si wanaagsan wax u wareystaan waaye hadda wareysiga u dambeeyay oo xiisaha wararka wiilkan walaalkeena oo maxaa la yiraahdaa Cumar Koronto ma la yiraahdaa maleena ma garanayo haddaan ku qalday walaalkii raalaha maasha Allah wiilkaas mar walba wareysiyadiisa iyo waxyaabaha barnaamijyada iyo sida maasha Allah oo u turxaan bixiyo iyo sida alla ka cabsiga maasha Allah waa ku sabood gareynaa waa wiil wanaagsan dadka wareysiyada qaadayna waxaa laga rabaa labada qof intay isku soo jiidi karaan inay isku soo jiidaan in labada qof hadda qof oo wax u sheegay wareysi ka qaadan qofka kaleentana inay raadiyaan oo sida isku keen lahayn ay ka shaqeeyaan laakiin waxaa la yaabay dadka qaar wareysiga qaadayiin halkii qof oo careysnaay ay u sii jibinaayeen waxay sii baarbaarayeen ceebo kaleenta iyo waxyaabo kaleenta iyo ay raadinayeen oo dadkii bugta iyo waxbay ku sii abuurayeenbo waxaas walaalayaal oo wax wanaagsan maaha wax idiga soo garaayeen wax wanaagsan maaha aan saboodna ma rabi oo maxay aheeday oo calashaan aan ku helo fiidiyoogan aan duubayo oo uma baahni wajina kuma raadsanayo hadaa waji u baahanahay leefan soo gali lahay oo social media in laga barbartay iyo soo gali lahay ma jecli waxa wajigayga u qarsanayo oo kaamirad gadaasheeda aan u soo galayo maxay aheeday waxaan rabaa maasha Allah bareefadkii aan ku jiro marka intaas ay idiga filan hadii ay isleedihiin waxay raadsanaysaa maxay aheeday caanimo iyo waxaas caanimadaba ka soo horjeeda aan banacba habo marka walaalahayga dambiga ma wanaagsano wiilkan walaalkeen hal maalin un boo soo duubay halka maalin kadibna faraho ka qaaday halka maalin waa ku saxsan yahay oo garow ku leeyahay markii la soo eeday qofka inuu is difaaca aad ay u fiican tahay marka Ismaaciil laakiin Jooji walaalkay waxa wadid maalin kaste oo wax wanaagsan ahayn oo aflagaade magac xuna adeegsanayay xaasidnimo xataa ka sii muuqato wallahi oo qofkaas maxay aheeday aan la taageerin aan la fiirsanin aan la maxay aheeday heesiis yaa la qaadanin xaasid waaye dad isdagaali jireen dadaa kan qofkii wax qabo asaga qabo adiga qof kale inta u hadashid ma taada le ina ka hadashida ila fiican ani walaalo ma ogiye ina qofkaas kale inta rakaatay asaartid oo dadkii ka cilcili kartid oo ka xirxiri kartid wax fiican maaha wallahi dadka waxay isleeyihiin basoo ogaada siyaalo maxay ahayd waxyaabo marka wareysiga bixinaysid oo leedahay xataa waxaas intaas ma fiirsato intaas ma helo xaasid waaye hadaan fiiriye xataa wallahi wax ka jira ma lahan maxay ahayd wiilkaasna hadii inta aan fiirsanayo anoo aan jecleen heeso oo neceb oo waxyaabo maxay aan jecleen haddana reactionka iyo heesaha markoo bixinayo ma fiirsado marka waxyaabaha kale qosolka iyo maxay ahayd actionka xataa soo u bixinayo iyo maasha Allah socialnimada iyo dadka maasha Allah bulshada soo jiidanayo oo qof walba intaas oo iska rabaa marka qofka walaalka ah lama xasdo maasha Allah waa wiil bulshaabi inta hadda oo kulli halkaas la YouTube kaas la ka aragnaa ilaahay maxay ahayd mana isnaqaano ilaahayna baahi maxay ahayd oo iskugu imaanay iyo baahi oo isku raadsana malahan laakiin qofka maxay ahayd waxa oo asaga ku wanaagsan yahay marka isdagaashin aad xumaan u bedeshid oo xumaan leh aad sheegtid wax fiican ma walaalkay maxay ahayd wiilkaas aniga kulli inta bulshada uu soo jiitay waxaan u arkaa ilaahay heybada oo siiyay iyo qosolka iyo fanka iyo waxaas qof walba iskama qoslisi kara dadka kama qoslisi kara qof walba heybado ilaahay siiyay ina lagu la dagaalamo ma ahan horumarkaas oo gaarin heybad ilaahay oo siiyo ku soo jiitay marka Ismaaciil oo walaalow hadaa tiraahdo wiilkaas xaasid waaye iyo kan waaye iyo dad oo la soo dagaalo qofkii oo la dagaalay
waa la isdagaali karaa bilaadanko idila isdagaalo adiga haddii dib lagu raaco meeqa qof oo isoo dagaasheen adiga maxay ahayd haddii dib lagu baaro meeqa qof oo maxay ahayd aad aflagaada isoo mariseen asaga mar horeba go-aan ka qaatay oo yiraahdaba maxay ahayd intaana igu dambeyso waa ka hormaray inaan qof dambe usoo jawaabo marka waxay ahayd ma fiicno walaalkay ha isxasdinaha intaas inaan lafaha iska xagxagatiin oo qof waa isdagaalsanahay sumcadiisa u dishid wax wanaagsan ma aha walaalkay intaas aan kusoo gabagabeynaa igana raali noqdo haddii maxay ahayd hadalladeeda aad jeclaysanin laakiin walaalayaal oo halay gaarsiiyo maxay ahayd maslaxadda laga shaqeeyo dadka wax wareysanayo dadka isqabanayo maxay ahayd dadka wax u kala qoraayo qof walba wanaaga ha isku dayo maxay ahayd intaas aan kusoo gabagabeynaa idinkana intaa hadda idila hadlay cafis iyo masaabax خير أنا إذا رجينا ولا عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.